kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka Soomaaliya iyo caalamka waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 30 bisha koowaad ee January sanadka 2021 qodobada wararkana waxaa ka mid ah xog ku saabsan beesha caalamka kulan xasaasi ah ay la yeelanaysaa madaxweyne Farmaajo fariin muhiim ah ay madaxweynaha u sidaan taasoo ku saabsan Puntland iyo Jubbaland Soomaaliya kalsoonida ay kala noqotay ciidanka Kenya ee jooga gudaha dalka China markale ay digniin hanjabaad ah u dirtay Taiwan maraakiibteeda dagaalka ayaana ku sii qulqulaya xeebaha Taiwan iyo Iran waxa ay daldashay ku dhawaad 30 qof Amnesty International falkaasi waa ay cambaareysay balse dadka la daldalay ayaa loo haystaa basaasnimo qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystirnayd wararkeena kaga bogado u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen waa xagaag wararkeena waxaan ku bilaabaynaa xog ku saabsan beesha caalamka kulan xasaasi ah ay maanta la yeelanayaan madaxweyne Farmaajo fariin muhiim ah oo ku saabsan dhanka Puntland iyo Jubbaland ayayna u sidaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa maanta oo sabti ah inuu xarunta madaxtooyada Soomaaliya kulan xasaasi ah kula yeesho wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya xubnaha uu madaxweynaha la filayo inuu la kulmo waxaa ka mid ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan safiirka Mareykanka Donald Yamamoto safiirka UK ee xilka ka sii dagaya Ben Feder iyo ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madera iyo xubno safiiro kale oo dalka jooga warar lagu kalsoonaan karo aan ka helnay madaxtooyada ayaa sheegaya in kulanku uu yimid codsi wakiilada beesha caalamka ay u direen madaxweynaha waxaana lagu waramayaa in madaxweynaha u sidaan fariin culus oo arrimaha doorashooyinka ku saabsan inkastoo aanan cadeen waxa ay tahay fariintaas haddana waxaa loo badanayaa inay ku cadaadinayaan inuu aqbalo shir ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada si xal looga gaaro muranka doorashada ee daba dheeraaday shirkan oo markii hore dowladda ay aqbashay kuna xirtay in marka hore Axmed Madoobe iyo Saciid Danni ay soo magacaabaan gudiyada doorashada ayaa shaki uu galay kadib markii dowladdu ay ku gacan saartay habkay gudiyadaas ay u magacaabeen Puntland iyo Jubbaland kora tilmaantay mid sharciga reed marsan beesha caalamka ayaa dhankooda waxa ay soo saareen shalay war ay ku taageerayaan gudiyada ay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland iyo aqbalaadii shir ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo xubno ka tirsan musharaxiinta xilka madaxweynaha ee Soomaaliya maalmihii u dambeeyay waxaa sii kordhiyay saameynta iyo dhaqdhaqaaqyada beesha caalamka ee ku wajahaysa ismariwaaga siyaasadeed ee dalka waxaana la rumaysan yahay inay ugu wacan tahay madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisu uu sii dhamaanayo taasoo micnaheedu ay tahay in awoodda madaxweynaha ay aad u sii yaraanayso waa hagaag haatanna Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya ciidamada Kenya ee gudaha dalka jooga ayay kalsoonidii kala noqotay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay weydiisatay urur goboleedka IGAD inuu ka laabto warbixinta ay soo saareen guddiga xaqiiqa raadinta ee Jamhuuriyadda Djibouti ay hogaaminaysay sida ku xusan war-saxaafadeed ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho ayay waxa ay ku codsanaysaa in la saaro guddi kale oo u siman yihiin dhammaan wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD Muqdisho ayaa rumaysan in gabi ahaanba ay Kenya ku gacan sareysay macluumaadka ku jira warbixintaasi ku saabsaneed xiisadda ka ogan labadan dal ee dariska ah sidoo kalena wajahaya khatarta ururka Al-Shabaab dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay kalsoonida kala laabatay ciidamada Kenya ay qaybta ka ah AMISOM hase yeeshee dowladda ayaana soo hadal qaadin bedelkeeda ku aadan ciidamada Kenya iyo waxa ay doonayaan taas bedelkeeda waxa ay Kenya ku eedeysay in askarta gudaha Soomaaliya jooga ay u adeegsanayso danaheeda gaarka ah ee qaranka maamulka madaxweyne Farmaajo ee muddo xileedkiisa dastuuriga ah uu ka harsan yahay dhowr maalmood oo qura ayaa u muuqday mid u ololeynaya qorshihiisa dib u doorashada taas oo uu dhanka Kenya dagaalkiisa culays weyn saarayo ololihii doorashada ee 2016 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad ugu ololeeyay diidmo xooggan oo ka dhan ah Itoobiya oo haatan kamid ah wadamada saaxiibka dhow la ah Soomaaliya taa oo la micno ah in madaxda dowladda Itoobiya ay doonayaan in madaxweyne Farmaajo uu mar kale isku soo rogaal celiyo madaxtinimada Soomaaliya
hagaag haatanna dhanka iyo dibadda China mar kale ayay hanjabaad u dirtay ciidamada Taiwan. maraakiibta dagaalka ee China ayaana biyaha badda Taiwan kusii qulqulaya. dowladda China ayaa sheegtay in maamulka Taiwan haddii uu ku dhawaaqo madax banaani rasmi ah ay la micno tahay inay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah dhanka China. ciidamada dowladda Chinese-kuna ay tallaabo military qaadi doonaan. Taiwan ayaa ah ismaamul gaar ah balse Chinese-ku waxay u aqoonsan yihiin jasiirad qayb ka ah dhulweynaha Shiinaha. magaca maamulka Taiwan ee rasmiga ah waa Republic of China, waxaana aas-aasay maamulka Taiwan siyaasiyiin ka baxsaday maamulkii shuuciga ahay ee la wareegay dowladda China wax yar kadib dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. militariga China waxa ay diyaar u yihiin jawaabka bixitaanka daandaansiga iyo faragelinta shisheeye. madax banaanida Taiwan ee ku dhawaaqdo ama aqoonsi la siiyo waxa ay la mid noqon doontaa dagaal military oo lagu qaaday wadanka China. ciidamada Taiwan ee doonaya inay dabka ku ciyaaraan waxa ay la micno tahay inay iyagu ku guban doonaan, ayuu yiri ninka lagu magacaabo Wen Chan oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee China. war ka soo baxay 28 bishii koowaad sanadka 2021 laba maalin ka hor. China ayaa dardar gelisay dhaqdhaqaaqa military oo ay ka wado biyaha jasiiradda Taiwan oo ay maalmihii la soo dhaafay u direysay maraakiib dagaal iyo diyaaradaha wax duqeeya. arrintan ayaana walaac waxa ka muujiyay dowladda Mareykanka oo xulafo dhowla ah maamulka dimuqraadiga ah ee Taiwan ka arrimiya. hadalka ka soo yeeray China ayaa lagu soo beegay xilli Mareykanku uu Taiwan u diray maraakiib dagaal oo tababaro iyo dhoolatus la sameyn doona ciidamada Taiwan. inkastoo arrimahan ay aad u muuqato inay dagaal abuuri karto, si kastaba China ayaa quwadiisa military ay tahay mid aad u sareeya, waxaana lagu tilmaamaa dalka leh ciidanka ugu badan ee dunida dhanka infantry-ga markay ku howlgalayaan. hagaag wararka kale ayaan si aba qaadaya. waxaa ka mid ah dalka Iran ku dhawaad 30 qof ayaa lagu daldalay. Amnesty International ayaa cambaareysay, waxaase dadkaas ay dowladda Iran ku eedeysay inay ahaayeen basaasiin u adeegayay Mareykanka iyo xulafadiisa. xafiiska xuquuqda aadanaha ee taabacsan qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaariyay in Iran ay daldasho 28 qof oo rayid ahaa kuwaas oo la sheegay inay ku jireen xabsi ku yaala wadankaasi Iran, waana dadka laga tiro badan yahay. xukuumadda Tehran ayay ugu baaqday in la joojiyo xukunada daldalaada ah. dadka la daldalay oo ah dadka asal ahaan buluushi ka soo jeeda ayaa la tilmaamay in ay yihiin dadka laga tiro badan yahay ee ku nool magaalada Tehran. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay inay si kulul ay u cambaareynayaan 28kaasi qof oo bartamihii bishii December ee sanadkii 2020 iyagu la daldalay. dadkaasi ayaa la tilmaamay in ay ahaayeen dadka laga tiro badan yahay. Amnesty International ayaa sidoo kale iyaduna sheegtay in wax laga xumaado ay tahay in dowladda Iran ay noqoto dowladdii labaad ay xukun daldalaada ku fuliso dadkii ugu badnaa marka laga soo tago dalka Jeynaha. intaas ayaan saaxiibadeena qiimaha badan oo wararkii kusoo gabagabaynaynaa. nabadgelyo, ammaano Allah, kulata dambe isma dhaafno.